kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aad noga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan waxa kamid ah xildhibaan Mahad Salaad oo ka hadlay wararka sheegayo in loo magacaabay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Somaliland oo si weyn uga hortimid go'aan ka soo baxay dawladda federaalka oo la xiriiro qaabka loo qaybiyay dadka xujayda ee sanadkan xajinayo iyo sidoo kale daawadayaal muuqaalkan waxaad ku daawan doontaan dagaal khasaaro uu ka dhashay oo dhaxmaray Soomaalida iyo Canfarta qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownee daawadayaal xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa ka hadlay wararka saacadihii la soo dhaafay lagu baahinayay baraha bulshada ee internetka kuwaasi oo sheegayay in loo magacaabay agaasimaha hay'adda NISA xildhibaan Mahad Salaad oo qoraal soo saaray ayaa beeniyay wararkaasi wuxuuna fariin u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa u hambalyeeyo qoraalkiisa ayuu ku yiri wararka baraha bulshada lagu qorayo waa been ee yaan lagu kadsoomin akhyaaray hambalyadana yaan la iga khasaarinin ee hala ii kaydiyo mahadsanidin ayuu qoraalka uu soo dhigay Facebook ku yiri xildhibaan Mahad Salaad xildhibaankan ayaa ka mid ah saaxiibada madaxweynaha mar labaad la soo doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna si aad uga soo muuqday ololihiisii doorashada sidoo kale waxa uu ka mid yahay xubnaha aadka loo saadaalinayo inay ka soo muuqan doonaan garabka madaxweynaha Soomaaliya isagoo mucaarad soo ahaa 5 sanadood ee la soo dhaafay mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo loo doortay madaxweynaha tabnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ayaa ku howlan dhismaha dawladdiisa cusub waxaana dadka ilaa iyo hadda la magacaabay kamid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo loo magacaabay ergeyga arrimaha abaaraha iyo bini'aadantinimada ee Soomaaliya si kastaba waxaa isha lagu hayaa xubnaha soo socdo iyo ra'iisul wasaaraha iman doono iyadoo oo maanka lagu hayo ballanqaadkii madaxweynaha oo ahaa in koox gaara uusan wadanin isla markaasina uu wato tareen weyn oo la wada raacayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale galabta madaxtooyada ku qaabilay wafdi ay hogaaminayso ergeyga gaarka ee midowga Yurub u qaabilsan geeska Afrika kulankan ayaa waxaa laga wada hadlay dib u soo celinta taageerada midowga Yurub ee Soomaaliya iyadoo soo bandhigtay sida ay uga go'an tahay midowga Yurub garab istaaga siyaasadda iyo qorshayaasha horumarineed ee madaxweynaha cusub Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan ayaa xusay in la sii ambaqaadi doono isla markaasina la horumarinayo qorshayaasha dib u habaynta hanaanka maaliyadeed ee dalka si loo dhammaystiro dhammaan shuruudaha ku xeeran arrimaha deyn cafinta ee dalkeena danjirahan ayaa noqonaysa mas'uulkii ugu sarreeyay ee ka socda midowga Yurub ee soo gaaro dalkeena tan iyo burburkii kadib taasi oo muujinayso sida dawladda Soomaaliya ay uga go'an tahay adkeynta xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya dunida kulankan ayaa sidoo kale waxa ku wehelinayay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Marwotina Entelman kooxo hubaysan ayaa lagu soo waramayaa in degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir maanta ay ku dileen askari ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya iyagoo dilka kadib goobta ka baxsaday goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in ragga ku hubaysnaa bustoolado ay xaafadda Wajeer ee degmada Kaaraan ku dileen askarigan oo lagu magacaabi jiray Axmed Yare allaha u naxariistay askariga ayaa ka mid ahaa ilaalada sarkaal ka tirsan ciidamada militariga oo magaciisa lagu soo koobay Foofo kana howlgalo gobolka Shabeellaha Hoose waxaana askariga la dilay uu si weyn ula dagaalami jiray burcadda dhaca geysato laamaha amniga iyo maamulka degmada Kaaraan ayaana weli ka hadlin dilka loo geystay askariga ka tirsanaa ciidanka militariga si weyn looga yaqaanay degmada Kaaraan qaybihii dambe ee warkeena ayaanu ku sii dhawaanaynaa daawadayaal iminkana
xukuumadda somalilan ayaa si adag uga hortimid sida dowladda federaalka soomaaliya ay u go'aamisay tirada xujayda uu sacuudiga siiyey taasi oo ay ku dooday in somalilan ay ku lahayd 40% wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta somalilan sheekh cabdirasaaq xuseen albani ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka inay ku takrifashay qoondadii uu sacuudiga ugu talagalay somalilan islamarkaasina ay siyaasadaysay arrimihii xajka ee sanadkan wuxuu sheegay in qoondada xajka ee ay lahayd somalilan ay gaarayso 2,082 xujay halka dowladda federaalka ay sheegtay in somalilan ay ka xajin doonaan sanadkan 350 taasi oo ganafka uu ku dhuftay wasiirka waxa uu yiri dowladda sacuudiga waxay u qoondaysay somalilan iyo soomaaliya oo isku jiro in sanadkan ay ka xajiyaan 5,206 waxaana caado ahayd in tirada xajka ay labadan wadan kala qaybsadaan hase yeeshee waxay sheegeen buu yiri in tira intaasi ka yar ay ka xajin doonto somalilan arrintan ayaa imanaysaa maalin un kadib markii uu wasiirka diinta iyo awqaafta soomaaliya cumar cali rooble uu shaaciyey in ay 63 shirkadood si hordhaca ugu guulaysteen bixinta adeega xajka ee sanadkan wasaaradda xajka ee dowladda sacuudigu shaacisay in sanadkan la gudan doono cibaadadii xajka iyadoo oo tirada xujaajta ee sanadkan loogu talagalay inay soo xajiyaan ay dhan tahay tiro gaadhaysa 1 milyan oo xaaji waxaa markaa wasaaradda xajku ee sacuudi arabiya ay shaxaysay tirada waddan waliba uu ku leeyahay qoonda ahaan wadarta guud ee xujaajta waxaana ay siisay soomaaliya iyo somalilan oo isku jira tiro dhan 5,206 xaaji waxaa caado ahayd in marba tirada la helo ee xajka loo qaybsado labada dal ay qaybsadaan soomaaliya iyo somalilan haddaba waxaa jirta in muddo 2 sano ah oo 2 sano u dambeeyey 2018 iyo 2019 oo ah 2 sano u dambeeyey ee la xajiyo la siyaasadeeyey arrimaha xajka xukuumadda somalilan iyo shacabkeeduna ay muujiyeen dulqaad iyagoo ka dhowraya xajka iyo cibaadada maaragtay allah subxaanahu wa tacaala uu inoo jideeyey inay gasho buuq iyo khilaaf sidaa awgeed waxaa maanta nagu kalifay in aanu warmurtiyeedkan soo saarno markii aanu aragnay nidaamka ka jira muqdisho ee uu hoggaaminayey maxamed cabdillaahi farmaajo in qoondadii xajka ee dowladda sacuudigu ay jaangoysay ay ugu takrifaleen si badrheedh ah kadib markii ay wasiirkiisii xajku uu soo saaray go'aan ah in somalilan ay ka soo xajiyi doonaan dad 350 qof oo xaaji oo u dhiganta qoondadii la bixiyey soomaaliya iyo somalilan 6.8% markii hore ay ahayd somalilan 40% ay qaadan jirtay oo ka noqonaysa tirada maanta la bixiyey ee si guud loo bixiyey oo 5,206 ahayd waxay somalilan xaq u yeelanaysaa oo ay qoonda ahaan yeelanaysaa 2,082 xaaji sidaa awgeed waxaanu halkan ku caddaynaynaa
inaanan sinaba u aqbalaynin ka xukuumad ahaan tirada 350 xaaji shacabkaygana aanan u qaadaynin waxaan u qalmin tira ahaan iyadoo aan u arkaynay arrintaas inay tahay in la doonayo shacabkan in la duudsiyo xaqoodii ay u lahaayeen gudashada cibaadada xajka oo aan u arkaynay arrinta noocaasi arrin ku dhisan siyaasadayn ugu dambayn waxaanu dowladda sacuudi arabiya ugu baaqaynaa in ay arrintaa si dhaqso ah wax uga qabato oo aanay aqbalinin in xajka ama cibaadada xajka la siyaasadeeyo. ugu dambayntii daawadayaal faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa dagaal xoogan oo dhex maray Soomaalida iyo Canfarta. dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay galbeedka gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida waxaana uu ku dhex maray halkaasi ciidamo Maleeshiya iyo waliba dad Soomaali ah. dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ciidamada iyo Maleeshiyada Canfarta ay weerar ku qaadeen deegaanka Cundhufta la yiraahdo halkaasi oo ay degan yihiin Soomaalida waxaana dagaal xoogan oo ka dhacay la xaqiijiyay in ay ku geeriyoodeen 8 ruux 7 kalena ay ku dhaawacmeen. dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay aagag kala duwan waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in ciidamada Maleeshiyada Canfarta ay dib ugu laabteen halkii ay ka soo weerar tageen kadib markii ay iska caabin kala kulmeen Soomaalida xoolo dhaqatada ee ku nool deegaankaasi ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida. dagaalka Soomaalida iyo Canfarta ayaana ku soo laabtay dhulka Soomaalida Itoobiya iyadoo dowladda Itoobiya ay ka fiirsanayso dagaalka isla markaasina aysan wali qaadin tallaabo lagu hortagayo ama markii uu dhaco lagu joojinayo. guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.